الرحيم maanta waxaan joognaa Bristol UK waxaa ka isugu yimid dhammaan haldoorkii Swearawal dumar haween dhalinyaro waxaan leeyahay kulanka waxay ku ilaalin doonaa insha Allah dhowr qodob iyagoo taageeraya steedii qodob ka soo baxay ay ku dhawaaqeen salaadiinta Swearawal ee uu hogaaminayo Sultan Mohammed Sultan Ahmed Sultan Mulisa Beste iyo Sultan Ahmed Ibrahim Qamash odayaasha kamida magaalada Bristol tolka looma gabiyo oo tolka gobeygu waa ka mamnuuc tolka wax tirado laakiin wixii tusaale ah ee aynu iskaga difaacayno aynu wax ugu sheegayno ninka inaga mid ah ee inaga soo horjeeda ama la inoo adeegsanayo inaanu wax ka nidhaahno waa laba tudo intii aan abtirsiimiyo ka soo gaaray abtirsiimo ka soo gaaray awow dhammaanteen ummadeena asaageed kuma wiirsane asalaala qamaanta Ahmed oo waxa keenay nimankii abtirsiintii iyo ehelkooda yaqiin Allah uu naxariistay ifka way ka tageeno oo asoolka shisheeye niman aad u yaqaaniyo hal aan naflahayn ba albaabada hadda taagan iyadoo walaas oo keedii bay arkayay eray aan duxlahayn oo nin shisheeye arbow ka yiraahdo afkiisa shacabka yalwiyaan ilka kii qoday adduunkooda dhameystay oo amaan badan waxaan ahay maanta boqoltii ama boqolkeeda indhood mid waxaan ahay sokeeyaha ku arkaysay horta tolka inta u dhaafin maayo waa tawada Ilaahay inuu soo hadeeyo inuu rajaynaa laakiin meel xun bay iska keentayeen badan bas intaan boqolka sanadood soo socda Muuse biixi ninka geesisani min la mid mooyaan inuu naga dhalan doono lama furaayo هذا روح المغرينا أفضل بكم قلي اسمعنا قبتها أنا ما قبته وما حراسيها أنت أوضاف منه يبغى روح نشعرها وهي سهليو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلهي بقى مهدله إله هالك نسوك إن كان إنه نوضنا مهدله ما أنت waxa uu daaran yahay xafladeena ay daaran tahay iyo shirkeen jirayd xafladii ka dhacday ama shirkii ka dhacay Somaliland Hargeysa habar awal sulaadiinteeda iyo xildhibaanadeeda iyo aqoonyahankeeda iyo intii ka soo qayb gashayba arrinkii ay ku dhawaaqeen sideedii qodob ee ay ku dhawaaqeen shirkaasi ee sulaadiintu hogaaminaysay Sultan Mohammed iyo Sultan Mulisa Beste iyo qabile ay saddexdaas hogaaminayeen ee boqorada lahaa ee ugaasyada lahaa ee aqoonyahanka iyo shacabka kale intii ka soo qayb gashay ay ka mid ahaayeen qodobadii sideedda ahaa ee ay ku dhawaaqeen sideedda qodob baanu taageeraynaa hadaanu nahay Bristol rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeelba waxaanu taageeraynaa mid iyo duuduub labadaba ra'yiga iyo qodobada ka soo baxay shirka ayaanu taageeraynaa barbar taaganahay soo dhaweynaynaa inta waxaan ku darayaa suldaanka la isugu yimid ee laga soo caleema saaray Hargeysa ee habar awal ee Saad Muuse ee Cabdulla Saad suldaanka la imika waan caleema saaraya oo caleentii baan ku tuuraya horta isaga ma la caleema saaray waa maya حسن سلطان عبد الله حسن يره لما على مسارين لما دورنين أقل هوستي أيال لويدي انت الرأس كيسو وحتى هي كسمة النبي loo xil saarayna uu la ambaday uu la lumay uu kaga soo horjeedsaday tolkii imaamada u siday uu fadeexadeeyay uu ceebeeyay uu habaaray wax walba uu cusgaday intaas markay dhacday
habar subeer awal waxa uu goostay inuu ninkaa ka soo horjeedsado isaguna oo uu sheego inaan ku metelin waxaa suldaano ugu ahayn oo haddii uu ku leeyahay tala kale la isaga yimaado oo looga noqdo waxaan ku soo gabagabeynayaa waa la oran doonaa hadalka waa la hadli doonaa waxaan ku soo gabagabeynayaa haddaan anigu odayii Bristol ahay in midnimada subeer awal iyo dadaalka subeer awal iyo muruqa subeer awal iyo maalka subeer awalba in la mideeyo oo lagu dhaqmo oo lagu socdo halka dadka aynu wax la leenahay ay taagan yihiin la istaago odayaasheenii ku shiray ama dadkii hormuudkaynoo ahaa ee ku shiray magaalada Hargeysa oo dhaqanka ahaa wixii ay danmoodeen ay go'aamiyeen ee 8 qodob runtii markaynu inaguna eegnay la fahamnay inaynu la mowqif nahay inaynu taladaa la qaadanay inaynu muujino sidaa darteed aniguna taageeradayda waxaan ku darayaa iyo taageerada Bristol oo dhan dadka reer Bristol oo ku metelaya waxaan baaqa ku daraynaa taageeradoodaas inaanu raacsanahay waxaynu halka isugu nimo haddaynu nahay jaaliyadda subeer awal ee magaalada Bristol ee cariga Ingiriiska ee dalka UK inaynu cadeyno mowqifkeena ku waajahan baaqii 24 bishii Afaar 2025 ay soo saareen saraadiinteena iyo bahdeena dhaqanka iyo waliba ay weheliyaan xildhibaanada baarlamaanka iyo deegaanka aynu ku leenahay bahda saraadiinta oo ay hogaaminayaan suldaankeena guud ee subeer awal suldaan maxamed suldaan mawlid sabayste iyo afhayeenka guud ee saraadiinta suldaan axmed qabile baaqii ay soo saareen ee 8 qodob ahayd runtii aad iyo aad baan u taageeraynaa muhiimadda aan maanta halka isugu nimana waxaa weeye inay beesha subeer awal ay cadeyso halka ay la socoto iyo cidda danaheeda wata marka waxaanu cadeynaynaa annaga waxaana hogaamiya ragga uu hogaaminayo suldaan mawlid sabayste ujeedadaynu halkan iskugu nimid waxaynu diidanahay oo ka soo horjeednaa suldaankii sabayste lagu bedelayo horta kaas waa qodob ma seegayo anigu kaas waa qodob waa ka soo horjeednaa waana diidanahay jabhadda buurta gacan libaaxa ee noo soo malmaluuqday suldaanka ma ogolin kaasi ma ogolin waxaananu raacsanahay oo aanu taageeraynaa salaadiintayda 8 qodob ay soo saareen maanta ayaanu taageeraynaa oo halkan u taaganahay annagoo odayaashii ugu horeeyeen maanta waxaan leenahay waa ka soo horjeednaa mana ogolin waanaan raacsanin ma garatay 8 qodobna waanu ku sabeeraynaa meel kastoo ay joogaan halka waxaan baaq uga diraynaa subeer awal inuu ka kaco fadhiga xisbigiisii hagaajisto dowladdiisii muuse biixi cabdi maanta cid ka dambaysa oo aanu maanta daba taaganhayna ma jirto ilaa soo faar waxaanu leenahay 100 sano soo socda muusoo kale naga dhalan maayo soo ma garan qodobkaasi oo ninka yidhi salaadiinta isagoo ujeedo kale in suldaan sabayste laga tuurto wejiga waa ninka la yidhaha Siciid Sokeeye ee baarlamaanka ku jira waxaanu leenahay masaajidada aad kaga qudbadaynayso iyo kuwii cadagude maxaad adigu uga tooyay wejiga kuwayadan kuma dhacdid kumana dhacdid marayna ka tib aad uga soo kordhacay kullu hujuum baa inaga
dee laynagu soo qaaday reerku markuu reer yahay doonayana inuu wax qabsado ama samaysto isagaa u xoraa dhaqankiisa dadaalkiisa siyaasadiisa nidaamkiisa isagaa u xoraa laakiin waxaan maaraya inay kow tahay sheekadani reer dhan oo qabiiloo meel yaallo wax samaysanaya in la yidhaaho waxaa uma qalantaan aad iyo aad iyo aad bay sheeko adag u tahay wax la qaadan karana maaha waxaynu markaa taa kaga gudbaynaa dee waxbaynu ilaynu ogaanay inaynu ka midowno meel kastoo aynu joogno gudo iyo dibada aynu mid ka ahaano xafladan waxa weeyaan siboodka aynu 8 qodob ee odayadeenu ay soo saareen caqiladeena iyo indheergaradkeena iyo guurtideena iyo dadka aynu u daba fadhiisano talada ay soo saareen in aynu ku siboodno haddaynu nahay jaaliyada reer Bristol aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa waana wax aanu in badan sugaynay oo waxaanaynu weligeeba dhaqan u lahaan jirin aseenan intaa jiray aanan weligay qorshahayga ku darsan ninka suldaan la yidhaahdaa de wuxuu suldaanu yahay reerkiisa ninka caaqil la yidhaahdaa wuxuu caaqil u yahay reerkiisa laakiinse waxaanan arag noloshayda oonan hore u maqlo taariikhda maanta iigu cusuba waxa iigu horeysa dee suldaan ka soo horjeesta dadkiisii isagu doortay ee loo suldaankaas waxaan anigu ka filayay dee hadduu ina biixi nabcaa oo bal uu iska dhex arkay inan markii ina biixi iska tegay inuu ku soo noqonayo xaydaankii uu ku jiray ee loo doortay laakiinse ilaahay wuxuu ila ogyahay wiigii horaan u shiray shirka waxaanu ku soo qaadnay inaan wadaadka xasan aynu nidhi aynu haddaynu nahay qurba jooga iyo qolqol jooga aan iska hor keenno oo xasan hadduu muuse nabca muuse iska tagiye dee dalkiisa dadkiisa ha lagu soo celiyo oo bal xaydaankii siyaasadda ee xaqa u lahaa ee loo doortay dee ama ha kaga baxo ama ha ku soo noqdo ilaahay waa tuu nagu ogyahay wiigii horaan kaga hadlayn laakiinse wuxuu dhex galay dhiiqadii ugu darayd markuu yidhi mudane muuse biixi cabdi xidiid waxaan ka tuuray halkii baan afka dhulka u gelinay kelmadaasu sharaftiisii iyo sharaftii suldaanada iyo sharaftii caaqiladaba dhulka ayay gelisay runtii qalbigayga aniga shaqsi ahaana aad bay ii taabatay waanan ka xumaa runtii marka la doonayo runta waayo ninkii aanu dooranay suldaanka subeera awal lagu sheegayay ee ciise muuse badbaadiyey markii laysiri ka qaada ciise muuse badbaadiyo yidhi maya daaya ayaa maanta ninkii reerkiisa ugu sarreeyey ee aan wax ka sarreeya jirin ee maanta muuse biixi cabdiyahayey ilaahay dalka u keenay oo hadduu maanta 5 sano dambe ama 3 sano dambe dalka aynu ugu dari lahayn meel baynu gaari lahayn Soomaaliland dad bay noqon lahayd laakiinse lama garan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعيانتا rag iyo dumar bale ee halka isugu yimid waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala allaha inoo hirgeliyay quruxda iyo sharafta aynu isugu nimid ee halka isugu kan keenay ilaahay baa mahadda iska leh marka xigta waxaan taageeraynaa oo taageero aan u muujinaynaa 8 qodob ee uu soo saaray guurtida ragga yagii iyo sharafta lahaa ee salaadiin lahaa ee golaha deegaanka lahaa ee lahaa guurtida baarlamaanka lahaa 8 qodob ay soo saareen horta waan ku taageersan aad bay ugu mahadsan yihiin hadalka badin maayo marka la talabaadeen raacsanayo waxa weeye subeer awal uu seexday subeer awal toos urgada ka toos wadaada aqal fadhida kursi ku fadhida
albaabka uga geliya hadalka soo kaca dadku dhegta iyo ilbay isa saareen ishiyo dhegta isku hayaan dadku wuu ismaqlayaa dadku dhan buu wada jeedsaday warmadu way jahaysatay suweerawalow jahayso maanta waxaynu maraynaa in laynoo jaheeyo oo la yidhaah mustaqbalkiina iyo himiladiina midna kama jawaabi kartaa ee annaga ayaa idiin yeedhinayna ilaa abtirsiintiinni baa la maraya nolosheenni way qadhaadhaatay nolosheenni meel qadhaadh bay maraysaa haddaynaan isdaba qaban faraa layna siiyey quwad baa layna siiyey hargeysa meeshii ugu wanaagsanayd baa ilaahay ina dhigay istaraajigii war maxay naga maqan suweerawal weliba haweenku way soo jeedaana raggow soo jeedso raggow soo jeedso raggow israaca war tawfiiqda allaha inoo hagaajiye raggow israaca war aynu dhan u wada soconno oday haddii lala shirayo waa in rag iyo dumar laysugu yimaado wixii jiraba waa in laysla ogaado hawl haddaan labada garab laysla qaban waxaan ku idhi idinla kelida hinjin maysaan anana kelida iyo hinjin mayno waxa weeyaan wataa salaadiinteenni la weerarayo ee waxaan ku idhi foosto laynagu soo riixay ilaa xamar ka soo socota foostada xamar ka timid inagu islanaynaa sugin sibeerawalow inaga isla sugnay foostada xamar laga soo giraangiriyey ee tukri laga soo giraangiriyey gabar laga soo giraangiriyey ee lacagtu sidaa fanku inoogu yaacayo warda raggeenni hadduu dhaqaalo u dhintay dee dad baynu naho dad baa alla inaga dhigay dee sanaaduuqaan samaysano salaadiinteenna aan hanano haddii shilin laysku dilayo salaadiinteenna waa awoodnaa sideerawal wuu ka buuxaa caalamka ilaahay wuu dhigay meel walba quwadda afrikaynu qayb ka nahay dee raggeena sanduuqa aanu samayna sanduuqaan igu ridno bishii war sideerawalow toos nin faqashtii nin ahaa ayaa istaagi jiray xuduudda jaadlaha ayuu dhici jiray degmuhu markuu galabtii uu soo caraabo raamaana ka soo dhacay waxaan ku isu taagi jiray ayuu wadada ee salaamtii baa soo dhukustay dhulkay dhigtay dumarkii iyo raggii jaadlaha ahaa oo gariiraya la yidhi faruur wuu yaallaa maanta ma kacayo waxaa la yidhi faruur way soo dulmarana way haraatiyeen faruurow toos naaga faytoofid caraabee kacay faalkifeeda kala raacdaa la kolkaa dee hawshu way inoo taalla aqal yar iyo hawl badan ayaa inoo yaalla salaadiinteennana allaha guuleeye raggeenna sharaftale allaha guuleeye intaynaga baydho allaha inoo soo celiyo inama dheero qofna war hadda tuugu markuu waxado waa la xidhaa maxakamad baa la geeyaa hadda reerkii uu ahaa ma xishoodo hadda waxay u qabtaan looyar way ka daba yimaadaan way soo joogsadaan oo waxay dhahaan tuugaa annaku nala walaalyahay waa mililicayaan inana waxaynu ka xishoonaynaa dadkeennii noolaa inaynu nidhaa war ka baydha warsuwara walow toos wanaaga faytoofi caraaneedi baynu maraynaaye waxa weeye saaka ilaahay subxaanahu watacaala iyo waxa weeyaan 18 milyan ilaahay nabadiyo caana inagu gaadhsiiyo tawfiiq iyo talada allah inoo hagaajiyo sideera ilaahay mid ha ka dhigo waxaan ku idhi caalamkeena iyo ciideena allah inoo adkeeyo dowladana waxaynu leenahay dee maanta idinka hayee inamadaa yaryare hoose cidla u fiirso oo iska eeg oo u fiirso inamada yaryare dhakada xaliyada leh oo adduunkii qasay warda iska eeg baan leenahay iska eeg oo u fiirso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin salaamay